sideedaba adduunyadu waxa weeye dalka Soomaaliya la yiraahdo haddaan shuruucdiisa la ilaalinin dastuurkiisaas aan leenahay aan la ilaalin waxa weeye dawlad ma ahaan karno dawlad waa tii dastuurkeeda wax walba iskala weynaada waxaan rabaa shalay sidaad la socotiin golaheena wasiirada ayaa shir jaraa'id qabtay waxay sheegeen dhammaan heshiisyadii lala galay dalka midda dalalka aan xiriirka lahayn inay baajiyeen oo ay buriyeen ma xumo laba dawladood waa iskhilaafi karaan waa burin karaan heshiisyadii ka dhaxeeyay laakiin su'aasha koowaad oo ii taagan waxa weeye heshiiska aan la galnay dalka heshiisyadiisa shalay la burinayay ee baarlamaanka la keenay qodobkiisa iyo maalinta baarlamaan la keenay anoo la sheego haddaan la sheegin oo la dhihay heshiiskii baarlamaanka Soomaaliya laga ansixiyay oo noocaas ay waa burin heshiiska sidiisaba waa inuu leeyahay sal heshiisi aan sal lahayn ee marka ugu horeysaba shakhsiyaad heshiiye ahay haddii la buriyo horta wax weyn oo annaga aanu aragno ma laha haddii aan nahay dadka sharciga tabliiqiya ee dawladnimada ay ka go'an tahay ee saaxiibadayda iyo anigaba waxaan aaminsanahay inayna arrintaas arrin sal ku fadhiisaynayeen waxaan rabaa marka haddii ay jiraan wax oo sal leh oo sharciga la burin karo waxa la doonayaa dalkan waa federaal mar haddii federaal la yahayna dawladaha federaalka qodobka 142 farqadiisa koowaad iyo labaad ma la fuliyay siday u qoran tahay waxay u qoran tahay dawladihii ka horeeyay federaalka ilaa dastuurka dawladaha dhismaaya la waafajinayo iyo dhammaanba la waafajinayo waxay haysanayeen awoodadeed taas waxay qusaysaa dawladdii hore ee Puntland iyo dawladdii hore ee Galmudug iyo ahlu sunna oo heshiiska ku saxiixan dastuurkan hadda aan ahay ku saxiixan ururkii ahlu sunna waa hadda ma ogtahay dawlad ahaan looma haysto waa xisbiyay noqdeen laakiin Galmudug tii hore madaxdeeda la yaqaan madaxweynayaasheeda la soo maray ma ka bilaabato madaxweyne qoorqoor kama bilaabato ee madaxweynayaal ka horeeyay oo heshiiskan wax ka saxiix Galmudug ma lala tashtay Puntland ma lala tashtay ilaan waxay ku dhaqmayeen dastuurkoodii hore oo ay haysteen waxaan kaloon rabaa oo waxaas oo dhan ka daran waxaad ogtihiin dawladaha qaar in muxuu ahay mar hore ay ugu dambeysay cilaaqaad ay yeeshaan ayaga iyo dawladda federaalka masalan aniga waxa liiga soo doortay meesha la yiraahdo Hirshabeelle xaq waxay u leedahay sidoo qabo qodobka 53 farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad qof kasta oo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay dastuurka aan sheegay inuu akhristo oo haddii aan been ka sheego uu yiraahdo xilwaan jeeso been uu sheegay Hirshabeelle oo liiga soo doortay waxay xaq u leedahay qodobka 53 farqadiisa koowaad labaad saddexaad sidoo uu dhigay in lala tashto dawlad goboleedyada in lala wadaago heshiisyada caalamiga heshiisyada laga baxay waxa soo ma xaq u leedahay waxaan hubaa annagu matalaad baan u joognay ilaa iyo hadda Hirshabeelle intay ila soo xiriirtay ma dhihin heshiiskaas dawladdu ayna la soo wadaagtay nama ayna dhihin meel kalaba intaan aadin dawlad goboleedka liiga soo doortay ayaan aaminsanahay inaan lagala tashan dawlad goboleedyada dhammaan dhaqaalihii iyo heshiisyadii ay galeen qodobka 53 sidoo tilmaamayo waxyaabaha la baajiyay waxa la yiraahdaa dekadii Barbaro dekadii Boosaaso dekadii Kismaayo ayaa la yiraahday taabanaysa heshiisyada la burinayo oo marba hadeedna kala tashanay kala tashi dawlad goboleedyadaas deegaankaas aan kala tashan
siday u saameynaysaa ma urinayaan wax ma soo urinayaan waxaa la rabaa fact xaqa dhabta in laga dhawaajiyaa la rabaa ma la ogolo annagu mana qaadan karno in dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu dalka kala go'iisa oo muxuu haddaan Soomaaliland la xaraarigooyno aan la gaabadhacaynay in dowlad goboleedyada kala hadane ay muxuu ahaa xiriirkooda la xumeeyo oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kala sii tagaan ma ogol mar haddaan Jubbaland la hadlin Puntlandina aad la hadlin xiriirna aadna lahayn kuwii saddexdii dowlad goboleedka kula jireen ay كذس كتاه هنا حرير كاثلا جري أي كذس كتاه سيده أنا جو حل بانا ذي عن ودقيسين كرنا أو أنقولها إنسي جيجي في كرنا أو تستور كان عن وفسري كان شعب كصومالية مدحوين حسنو بالله عليك أستانتي غرق هتاي ما نديت كذا أفر بلوت أو ولي بقى وحكم غيين هكلمن هالسبب إن يصدلك كلاجا جو هفضودين إن دولة جو عن كلا نقنه أو أي بري جبلاند كله واقضوا جوي سعد ببودلاند أي كله واقضوا جوي حمر بس إنه سهرته سببها ونقن حتى أنا سومالند نبكى محوها دبعتها كجرت أي سبب قطها إن محوها وحنا دولة حريرك وجرا دولة يلا أذيروا بالله عليك أنا بأول بأنا أوجين هشيس للقلي إمارات أو برلمان الصومالي لكن أنا أركن أنت برلمان كجرا أنا أركن هشيس حسن شيخ إمارات للحي هكود دامج جرين أو نقالة كسليسنا هكود دامج جرين الدولة قبلية ديلا نقالها كوهايستو دنا هذا كشقيناي أو بودلاند كمتاي أو جبلاند كمتاي أو أنا ربنا إني هير شبالي إيو كونفور قلبيد يمحوها قلمدك محوها أي وحكوية شان أو أي دول كود سو صارتان شلي أيام حنفسرها معلنة الدلك شرعي أو هندي الشرعية ده وحان تاجر سنة هاي وأنا برلمان كرتي سنة كشيء وحي بري كويك بري جوردن دولة قبلية ده كنيس وحي بري كويك معلنا إن دولة قبلية ده اللي غلطشت أو إيه حق يقوليه إن بحيان شتك ورهدي أنا لهن سو يورانيوم كين سو صارت أو معدن كين سو صارت أو ذهب كين سو صارت مال والبلغة سوحر وسالس كل جرا ودكنا فدرال نقمصه معناها فدرال كان بفهمين فدرال وحواي إن دولة قبلية ديلا أي قاتان رول كودا معمول وناقة غيراتك كفائديسي غيراتك إن أي قاتان إن لا على ذيو على هذا حكومة إمادان عاي وح من كنت ماذا وحن أركاي وسيرية الدولة المثليال عيدا أو عيناي قبيل دل أو صوماليا أو جرا عيناي وقفها هنا أركاي عيدن كأي حكومان أي لقيها با ويلش هذا إنه يكون جران عيدن كاس مركا ورعاي وح ما كنت وأفلقات وح ما كنت أو محوها قصب وح ما كنت هذه اللي قصب كرو مرة أنا كل غاغلين وح قصب كرو ماله وح محوها وحنا قد حيا واتستوركا مدحوين حسن شيخ محمود oo astaantii qaranka ninkuu ugu sareeyay dalka ha aqriyo shacabka Soomaaliyeed oo imaqlaayna la aqriyaano qodobka 142 ee dastuurka farqadiisa koowaad iyo labaad ha ka soo degaana ha aqriyaana 53 farqada koowaad iyo labaad iyo saddexaad ha aqriyaano qodobka 52 farqadiisa labaad intaas hadii madaxweynaha ku dhaqmo dawlad goboleed oo naga caroonayna male dadan dhibaato u geysanayna male midnimada dalkeenana waa ka shaqeyn karnaa annaga waxa muhiim noo ah midnimada dalka inaan ka shaqeyn ma jecli in kala gol la dhiirigeliyo ma jecli in dad tabasho qaba la siicayo ay sii cararaan madaxweyne dalka wuxuu u baahan yahay isku haysmo afarta bilood oo ku dhiman بالله عليك وكبريا ولالكي باتا حق بان اسكولنا لaba dawlad goboleedaan iskala wada laba dawlad oo federaal ah iska wada tirsaneen waxaan aqaanaa sidii hore u shaqeyn jirtay بالله عليك dalka isku hay isku day
siyaasadda waa qori u soo dhiibay in wax laga dhaxlo oo annagana ay awlaadayni iyo faraca daba ay wax naga dhaxlaan gidigeena aan isku dayna aan ku fikirna laakiin gacantayda ha ku baabacdo yaanan ku fikirin dalkan mustaqbal buu leeyahay waa dal qaniya dabcan tabar darreehana hayso laakiin waa ka soo kabanaynaa sidaan aniga aaminsanahay mar walbo dowladnimadu waa heshiis bulsho heshiiska bulshadana wuxuu noo qoran yahay halkaas dastuurkaas waxaanan ahayn oo weliba kowdii bishii agoosto 2012 shirweyne la isku raacay backgraft lagama bedeli karo intaas aan wada qabsano dastuurkii aan bedeshay intaan wax yeelay iyadoo la isfeerayaan guddi oo doorasho maalintii askariga la qareynay ayaa guddi doorasho taagni xoog lagu marsiyay war adeero xoog ma soconay bilaahi عليك doorashada aan ka wada hadalno shirkii Kismaayo oo aan ka qayb galay 20ka bishan ayuu ku egyahay muddada lagu qabtay oo aan ku dhahnay madaxweynuhu shir qaran ha noogu qabto oo aan doorashada ugu wada hadlay 20ka bishan ay ku egtay 21ka bisha wadanka jaha kale oo aadaya madaxweynuhu adoo xilka hay mandate haysto inaad wadankii jaha kale aadin bilaahi ku talagal walaalow ku talagal walaalow ku talagal ma u soo joogsan halkan inaan qof jaa'ifeeyo inaan qof dhibo laakiin kaasaan gacanta ku haystaa dastuurkaas ayaan ninka saxaafiga iyo ninka muxuu ahay siyaasiga iyo kan askariga iyo kan shaqaalaha iyo kan biitooniga dastuurkaas aan leenahay oo calanka ku gaariye dastuur kale oo aan leenahay male waa 142 qodob iyo 15 cutub backgraft lagama bedeli karo ilaa dawladii muxuu ahaa madaxweyne xasan sheekh bedeli karto dawladaha muxuu ahaa caalamka dawladayna waxa u dhiman 3 bilood iyo maalmo mandatekeed heshiis lama geli karo xaqiiqda dhabtaasaas waay heshiis lama geli karo madaxweynahana xilligan hadda aan joogno mar haday 3 bilood u dhimantahay heshiis kale ma saxiixi karo dawladaha raba inay heshiis la galaan ha ogaadaan heshiiska muddo 3 bilood nimay u hersantahay ay la galaan ayaga jeebka ku qaadanaya maalintii dawlad afarteeda sano haysato ay noo dhalato heshiis iyo waliba muxuu ahay deganaansho siyaasadeed iyo wax walbo ayaan noogu imaanaysiin dhammaantaynana waa idin soo wada dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo danaynaysa shacabka iyo dawladnimadooda Soomaaliya marka waxaan diyaar u nahay in muxuu ahay dawlad goboleedyada maqana aan soo dhaweysano oo aan dhahno walaalayaal oo kaaliyaha kale yaan kala sii tagin ha fiirinaha ficilka dawladda 3 bilood ay u dhiman tahay ha fiirinaha na fiiriya annaga oo u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxa way cid aan ka soo horjeesta male horta walaxad ka soo horjeestay waa language si kala aniga ciidan ka soo horjeesta male dawlad waxaan sheegayaa waxa sharciga dawlad 3 bilood ay u dhimantahay heshiis lama geli karo ninkii wax cambaaraynayo dawlad kale ku kacsan oo cambaaraynayna asagay u taala laakiin anigu cidna kama soo horjeesan waxaan difaacanayaa dastuurkayga qodobka 142 53 iyo 52 dawladda federaalka 3 bilood u dhim 3daas bilood heshiis lama geli karto heshiisna ma burin karto